بني شوقناني مركي قورس سعادتيني ما له واي صبروا إيه مقالب سووا تجرين وانتم فرح سنة هاي وحندي كلا غيروا الموضي مروا بنكون يوجينا سعادتين مرتبو عبادة ربنا نتقول لكن مرة نقريسو وقال كمان وحكي بقول دونتان سعادتين جسيرة الدم اللولايا دارا رهن صوت الحسين سير عواني مت waxaan joogi doonaa labada maalin kaboobe meeshaan waa meeshii aynu degnay soo waxaan si toos u aadaynaa badan u galaynaa marka waxaan rabaa inaan idin soo tuso muuqaalkan aan idin ku tuso Sacaadadiin hotelkeen degnay ka soo baxnay hadda waxaan si toos u aadaynaa magaalada ma qorgalayna intaan qadin markaan qadin kadib waxaan toos u aadaynaa Sacaadadiin iyo Cibaad hadda waxaan kor taaganahay dekada magaalada Saylac waa dekad qadiimi ah waxayna ka mid tahay dekadaha ugu da'da weyn geeska Afrika waxaa halkan sidoo kale ka soo degay Ibn Battuta kuna tilmaamay magaalada Saylac magaalo aad u weyn waxayna leedahay suuq aad u weyn muuqaal ku saabsan magaalada Saylac waxaan kaga hadlay muuqaalka xiga si aad u daawato kana mid noqoto saxaabteena janaalkeena YouTube-ka subscribe saaro muuqaalka inoo sii socdo waxaan soo gaarnay meeshii aan ka raaci lahayn doonta baabuurta meelaha loogu tagay aan maleynayaa hadda marka waxaan u sii soconaynaa doonta raacno waxaa inoo baran insha Allah Sacaadadiin muuqaalkan la socda Saylac waxay leedahay wax ka badan 6 jasiirad oo la tagi karo jasiiradda Sacaadadiin iyo Cibaad ayaa ugu caansan jasiiradda Sacaadadiin waxay kaga duwan tahay jasiiradaha kale geedahan gaarka ay u leedahay oo loo yaqaan taqi jasiiradda Sacaadadiin inaad tagto waxay kugu qaadanaysaa 20 daqiiqo oo inaad doon raacdo ah doontii koowaad aan soo raacnay way xalaysneed waxaana loogu bedelay doon kale hadda waxaan soo raacnay doontii labaad waxaana u soconaa jasiiradda Sacaadadiin kaliya waxay noo jirtaa 20 daqiiqo oo doona bal aan ku raaxaysano bilicdan xeebahan ay leeyihiin جسيرة الدم اللولايا دارا رهن صوت الحسين وحان دح مبور تيابا Sacaadadiin maanta waan imaanay iyo maxaa leedahay saaxiib الحمد لله أصحاب تقاليقا ورسول وين دار كنا كنسول هذا سفر بدن يا هول بدن كده أنا وقاعدين في الشارع معنا مركز أصحاب تحرك كده نغلط الحيس ده تلقى جسيرة الدم اللولايا دارا رهن صوت الحسين كده أنا وضيع حاجة تونس حاجة يجلس حاجة في السفر كريبتان ku aragnay waxaan ku ilaalinay ruuxda dabiiciga ee jasiiradda Sacaadadiin leedahay waxaan fursad u helay inaan doonta aan saarno xataa wax yar aan wado haddii aad maqli jirteen riyooyinku way rumoobaan maanta rumowday inaan Saylac imaado weliba aan Sacaadadiin tago waxa waaye wax maroo dhan ku yeeyo waan ku faraxsanahay runtii maanta inay rumowday marka waxaan ku leeyahay haddaad riyo leedahay ilaahayna tala saarato oo aad u soo baxdo riyo walbood leedahay waad rumoobi kartaa ku talagal kaliya sida riyadaas ku rumoobi lahayd waxaan ku faraxsanahay Sacaadadiin inaan imaado muuqaalka maanta inta ku soo jari karaan u maleynayaa laakiin haddii ay noqoto inta ku soo jaro muuqaalka inta ku ekaanaya waxaan u maleynayaa inaan Boorama tagno haddii aan Boorama tagno Hargeysa ku laabanaynaa muuqaalo kale waxaan ka soo duubi doonaa magaalada Hargeysa kaliya waan ku faraxsanahay runtii inaan jasiiradda Sacaadadiin aan kusoo dalxiiso walibana aan tago magaalada aan aad ku rajeynayay ee Saylac magaalada Saylac waa magaalo aad u qurux badan taariikh weyn leh
muuqaal kaloo aan ka sameeyey dhawaan waa uu soo socdaa intuusan muuqaalka dhammaanin waxaan rabaa inaan mahad celiyo dalkoob oo inoo suurtageliyey safarkan aadka u qurux badan sidoo kale waxaan rabaa inaan mahad celiyo asxaabtan isku baranay safarkan waxaan rajayn doonaa inaan safaro kale wada qayb qaadano hadduu ilaahay ogolaado